kulan afura oo isugu yimaadeen dhalinyarada beelweynta kuumade ee waqooyiga Amerika ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Ujeedada kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa gobol xaarka iyo diyaar garowga shirweynaha beesha oo dhawaan lagu qaban doono dalkani Mareykanka. kulankani oo ahaa mid ka madax bannaan siyaasadda isla markaana xoog lagu saaray mideynta dhalinyarada dal iyo dibad. waxaana sidoo kale kulankani tacsi tiiraanyo leh loogu diray looguna duceynayay Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed Carab oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya laguna aasay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. dhalinyaradii ka hadashay kulankani hadaladooda waxaa ka mid ahaa dhammaan dhalinyarada beesha kuumade aad baan idin salaamay waxaan aad baad ugu mahadsantihiin soo ajiibidana soo ajiibteen dhawaaq iyo baaqan aan idin soo jeedinay inaad ka soo qayb gashaan aha shirkan afurkan aan rabnay aan ugu gogol xaareynay inaan idin la socodsiino in aynu rabno inaanu sameeyno midnimada guud ee dhalinyarada beesha si isku xidhan oo maartay kor ilaa hoos isku xidhan oo dhameystiran hawsha inaan u qabano maanta waxa weeyaan waa daafur weeyaan oo waxaan doonaynaa inaan isku aragno arintaana aynu isku baraarujino inaanu dabacsanahay inaanu furno oo daafuro dhalinyarada beesha kuumada oo mid oo walaala dib iyo dheefna wada qaybsata haddii ay tahay halkan iyo haddii ay tahay dalkii iyo meel walba ay joogaanna isku abaabulaan arintaas oo ay si buuxda garab isku siiyaan afur wadareedkan ujeedkiisu waxa weeye oo kali ah mid ka madax bannaan siyaasad oo ka soo maaxday dhalinyarada beesha kuumada ama afarta ilmaha samiya adeerkood ujeedkiisuna wuxuu yahay sidii beeshan wada dhalatay loo mideyn lahaa iyadoo oo wax siyaasad aysan ku jirin marka ujeedka haddii ay intaa kaga baxo waxaan qof kasta ku salaamayaa meeqaamkiisa iyo sharaftiisa haddii aynu u guda galno ujeedka afur wadareedkan marka hore waxaynu dul maraynaa ujeedka afur wadareedkani qodobka ugu horeeya waxa weeye isbarashada dhalinyarada beesha kuumade qodobkiisa labaadna waxa weeye mideynta awoodda beelweynta kuumade ama sida loo yaqaano afarta ilma absame iyo adeerkood qodobkiisa saddexaad waxa weeye faham ka qaadashada beesha iyo qaybaheeda kala gedisan qodobkiisa afraad waxa weeye beelweynta kuumade iyo baaxadda deegaanka ay degto inta uu leeyahay in la fahmo fadhigan waxay dhalinyaradu isla garteen ama ka soo baxay warbixin ka kooban 10 qodob oo muhiim ah waxaan cid kasta oo na daawan doonta ama fadhigan iyo shirkan ay dhalinyaradu isugu timid ama afur wadareedkan daawan doonta u sheegaynaa daacadna naga ah annaga oo sooman inuu shirkani ka madax bannaan yahay waxa la yiraahdo siyaasad waxaan maanta ka hadlaynaa oo kaliya waa mideynta beesha kuumade ama afarta ilma absame iyo adeerkood horta aad baan soo dhaweynaynaa shirkan ururka dhalinyarada beesha kuumade aad baan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay sida uu afayeenku noo sheegayna waa shirka madax bannaan siyaasadda eexda qabyaaladda iyo qurunka wax ka madax bannaan weeyaan shirkanna waa la sii ballaarin doonaa midnimada ururka dhalinyarada beesha kuumade aad baa loo sii ballaarin doonaa guud ahaan gaar ahaan gobolka Minnesota iyo isteedada kaleba kuumada ha isbarto isma yaqaanee ha isbarto kuumade aad iyo aad baan dhalinyarta soo abaabushay kuumade dhalinyartiisu in ay kulanto oo ay sanad walba wixii danahooda ka hadlaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay afur wadareedkan ee dhalinyaradu isla qaateen ee ugu horeeyo shirweynaha ay qabsan doonaan sanadkan gudihiisa waxaan soo dhaweynayaa midnimada ay yagleelayaan beesha absamiya adeerkood ama kuumade waxaana aad ugu faraxsanahay
dhammaanba dhallinyarada tallaabooyinka ay qaadeen waxaan leeyahay hore u socda cali indhayaxaas Universal TV Minneapolis.